ciidamada difaaca Puntland ayaa la wareegay ilaa 5 talis oo ay kooxda Daacish ku lahaayeen buuraleyda gobolka Bari ee Puntland intaan kula wadaagin warbixintan oo faahfaahsan waxa ka codsanaya in YouTube-kayga subscribe dhahdo sidoo kalena aad muuqaalkan like saardo gambaleelkana furato si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ah ayaan halkan ku soo gudbino hadii aan ku bilaabo ciidamada difaaca Puntland ayaa maalinnimadii shalay ahayd la wareegay ilaa 5 talis iyo saanad ciidan oo ay lahaayeen kooxda Daacish sidoo kale ciidamada difaaca Puntland ayaa la wareegay ceelal iyo goobo kale oo muhiim u ahaa kooxda Daacish ee ku dhuumaaleysata buuraleyda gobolka Bari ee Puntland qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada difaaca Puntland ee ku sugan buuraleyda gobolka Bari oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kooxda Daacish ay kala wareegeen goobo muhiim u ahaa sidoo kalena ay kala wareegeen raashin saanad ciidan iyo ceelal ay ka cabi jireen kooxda Daacish ee ku dhuumaaleysata buuraleyda gobolka Bari ee Puntland qaar ka mid ah saraakiisha oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri waxaanu marxaati ka nahay guusha weyn ay ciidamadu gaareen dhowr bari oo ay hawlgal wadeen ay ka soo qaadeen deegaanka Timirshe aad iyo aad baa u mahadsantihiin ciidanka shaqadan qabtay oo sida degan oo aqoonta iyo xilkasnimada ay ku jidho shaqadooda u qabtay waxaan rabnaa inaan idinka mahadcelino idinku ammaano idinkuna abaalhayno insha Allah waxa qabateen oo dalkiina dadkiina u qabanaysa waxaan leenahay hawlka wadaale wali waagadii waxayna geeyeen ciidanku saldhigyo ay qabsadeen maanta iyo daraad oo tiradoodu ay tahay 8 inta waaweyn iyo meelaha boosiya oo ay ka carareen oo ka firxadeen argagixisada ciidanka markay aragtay ilaa weligoodba dhuumaasho iyo saqajaanimo waxay kuma shaqaystaan rag iskama celiyaan waa ku mahadsantihiin wixii aan tusteen waxa kaloo aan marxaati ka noqon inaan aragnay wax cuno saqajaanimo oo diyaarada cunay wax qarax lagu soo farsameeyo ciidanku fashiliyeen shalay galab maqribkii ay soo qorshaysay soo abaabushay ooguna kala galay hafaynta calmiskaad hawlgalkaas wuxuu ku soconayaa sidii ugu wanaagsanaa oo loogu tala galay wuxuuna ku soconayaa si mataqaana faastiya waxaan ku suganay hadeer difaacyada ugu dambeeyo oo ay ku dhuumaanaysanayeen argixisada manxayaasha difaacaas oo operationno saaka ay ka fuliyeen ciidamada Puntland oo isku qaybsan waxaana lagu soo burburiyay halgiyo waaweyn oo ay ku dhuumaansan jireen jihadka argixisada ah waxaanu ku soo dhaweynay oo difaac nagu soo booqday kadib goortii uu soo guuleystay hawlgalkii la qorsheeyay difaacyada iyo saldhigyada la soo baabiiyay saraakiil sare oo ka socota dawladda waan soo dhaweynaynaa taliyaha ciidanka booliiska Puntland General Muumin Cabdi Shire iyo taliyaha howlgelinta ciidanka BMBF ayaa dhankooda bogaadiyay ciidamada dawladda Puntland ee ku howlan soo afjarista firxadka argagixisada waxayna sheegeen maantay howlgalkii ciidanku uu qaaday howlgal wuxuu aad iyo aad loo bogaadiyay ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer Puntland ay sugayeen saldhigaas sida ay saraakiishu inay sheegeen waxa lagu soo burburiyay 8 saldhig waxay kala soo nadiifiyeen ilaa 9 kiiloomitir oo isku weera oo nimankaas u dhifaysay u ahaa xalay oo taariikhdu ahayd 9kii bisha waxay difaacyada ciidanka ku soo weerareen drones ay soo modifikeeyeen oo ah midatan ay ku xireen qaraxyada iyo wax noocaas ciidanku waa ka hor tageen falkaas fulinimada oo isku dayga oo ay isku soo dayeen sidii ay horay u fashiliyeen kuwii hore oo naflacaanimada ahaa bay tan u fashiliyeen arrintaas mahad ka soo Ilaahay waxa iska leh saraakiishii ciidankii Puntland ee geesiyaasha ah inta markay ka timaado sida ay dawladda Puntland ka go'an oo ay qorshaysay hawlgalku wuxuu ku socdaa sidii loogu talagalay waxaan hadda ku guda jirnaa wajigii koowaad oo bilow ah waxay yeelan doonaa hawlgalkan waji labaad waji saddexaad ilaa inta laga soo afjarayo
argagixisada hal qof oo argagixisa ama magaciisa sheegta u ogolaan maana haddii ilaahay idmo dhulka Puntland ama Soomaaliya dhammaan intaan ka awoodno